asalaamu calaykum daawade waxaan ku jirnaa 2020 waxaa sanadna sii sogootinaya waxaana ka hadhay dhowr maalmood oo qura runtii wuxuu ahaa sanad aysan ilaaweyn Soomaali iyo weliba adduunka dadka ku nool oo dhan waa sanad qulubta bini'aadam ka gilgilay haddaba daawade waxaan kuu soo gudbinayaa dhacdooyinkii 2020 kuwii ugu waaweynaa ee dhacay. dhacdada koowaadii ama saameynta koowaadii waa coronavirus amaba sida lagu magacaabo COVID-19. dhacdadan ayaa ah tii ugu la yaabka badnaa ee dhaca 2020. corona waxa uu soo bilaabmay dabayaaqadii 2019 waxauna kasoo bilaabmay magaalo ku taala Shiinaha oo lagu magacaabo Wuhan. waxa ay ahayd 1 January markay dhimashadii qofkii ugu horeeyay ay shaaciyeen warbixinayaasha Shiinuhu. 2 February waxaa la arkay dhimashadii ugu horeysay meel Shiinaha ka baxsan waxayna ahayd Philippines. xanuunkan ayaa saameyn ku yeeshay adduunka oo dhan walbana ka taabtay wuxuu galaaftay dhaqaale xumo aad u baahsan. waxaa la joojiyey diyaaradihii ganacsi ama rakaab ee u kala gooshi jiray wadamada caalamka. waxaa yaraaday dalxiisayaashii taasoo ahayd lugta dhaqaale ee wadamo badan oo ka mid ah caalamka ay ka faa'iidi jireen. waxaa la mamnuucay goobihii laysugu imaani jiray oo ay ka mid ahaayeen masaajidihii, kaniisadihii, goobihii ganacsi, hoteelada, goobihii dalxiise. waxaa la oran karaa waxaa la mamnuucay wax walba oo dadka faa'iido u lahaa waxaana la keliyey hakad ayaa ah saameyn weyn oo la taaban karo lana ilaawi karin si ay uga baxdo maskaxda bini'aadamkana ay yar tahay. haddaba adigaagan idaabanaya siduu kula ahaa sanadkan 2020 haddii jawaabtaadu tahay wuu fiicnaa ama wuu xumaa ku ahaaba wuu tegay kaga horyaalana waa 2021. ka fikir oo qodobeeso habsocodkaad kula noolaan lahayd 2021. muuqaalkeenu intaasuu ku egyahay mahadsanidin. asalaamu calaykum.